Assalaamu calaykum. Ku soo dhawaada qisooyinka nolosha. Aabe baa akhrisanayay joornaal, kadibna wiil oo dhalay ayaa mashquuliyey, oo marka warqadda rog is yiraahdo ayaa inankiisii mashquulinayay. Kadibna wuxuu is yidhi, inankan yar iska mashquuli. Inta uu warqaddii rogay ayuu xaashi ay qariirada dunida ku sawiran tahay inta uu soo jeexay ayuu jarjaray. Kadibna inankii yara ayuu u dhiibay, wuxuuna ku yidhi, orod halkaas fadhiiso ee qariirada dunida ee xaashidan ku sawiran dib isugu aadi. Aabbihii wuxuu islahay maanta sidaas ayaa isaga mashquulisay muddo aan 15 daqiiqo gaarayn ayuu wiilkii keenay warqaddii oo isku aadisan. Aabbihii waxa uu wiilkii weydiiyey isagoo yaaban, ma hooyadaaba juqraafiga kuu dhigtay? Wiilkii yaraa waxa uu yidhi maya. Odaygii waxa uu yidhi, oo sidee ayaad qariirada dunida isugu aadisay? Wiilkii ayaa ku warceliyey, waxa uuna yidhi, waraaqdan aad ii dhiibta dhinaceeda kale qof baa ku sawirnaa, keliyana qofkii baan isku hagaajiyey. Kadibna qariiradii dunida way isku hagaagtay. Wiilka yaraa oraahda oo ku hadlay waa uu iska dhahay, balse waxay noqotay oraah mug leh. Waxa uuna yidhi, markii aan dhisay qofkii bini'aadamka ahaa ayuu adduunkiina ii dhismay. Fadlan haddii aad qisadan wax ka faa'iiday, hoos inoogu soo qor.